waxa Sheekh Axmed su'aasha kale saddexaad oo ku weydiinaya waxa waaye wiilasha maxay ka mudan yihiin gabdhaha walaalahood hadda anaga wiilal nahay mar walbana waxa dhibaya anaga u nahay haddii wax la kufsanayo anaga un kufsanayno haddii wax qalad la samaynayo anaga un samaynayno haddii la noqoto in muuqaalo iyo anshaxumi waxaas la fogeeyo anaga un aan samaynayno maxaa la gudboon wiilasha inay gabdhaha walaalahoodii kula dhaqmaan والله والجزاء من جنس العمل قفل هل waxaan rabaa inaan dhaho wiilasha ugu waxa qof kale ku tacaamushin ba adigana lagula tacaamula alkayl waxa waa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha waxa waa qofka aljazaa'u min jinsi al'amal waxa sameysida lagu sameeyna qofka inuu soo istaago horta nin rag oo meesha inuu waxa ceeb ah nin caadi social media minuu nin kala lacaytama aslan kelmada cayba qalad waa diinta islaam Allahu akbar sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri sibabu almuslimi fusuq waaya qofka muslimka in la lacaytama ama lacay waa faasiqnimo waaya nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiid kale wuxuu yiri muslimka laysa bita'an wala bishir muslim qof wax tacniya ma ahan qof wax ka sheega ma ahan qof qaaya ma ahan qof lacnada ma ahan yani rasuulku wuxuu yiri laysa bimu'min muslim ma ahan رسولك حديث كله حر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قفك مسلم كرنت وحا قفك يكبد بعدين ومضان كله عرب كيس إيوه قعمن كيسة عرب كيس قعمن كيسة يكبد بعدين إذن كاس دي عام تحي والله تلقى القف والبو قبلها كورهنا لسيعي تنتين رجني محمد وايا وحونا أكسرنا ما أهان فهمتي قفك ولالكي وحاده لها raganimo ma ahan qofku walaasha inay caysid dumarka wiligeed waa loo naxariisan jiray dumarka wiligood waa la ixtiraami jiray dumarka ilaahiyga abuuray xataa shaqooyinka adag uu ka ilaaliyay markii jihaad hala galeeray ilaahi wuu ka daayay dumarka jihaad lagu matalagalay inay galaan ilaahi ma ku waajibinin xajka markii la aaday waxa la hadaadan mahram haysan qofku ku xeeyo ku haga hadaadan haysan culayska ka qaado ha aadina lagu dhaxay salaada jamaaca oo la baxaayo la aadayo waa loo xaliilay واجب كوما أهن إن إذا ربط ما ولا ولاس كاس ولا قاضي شقة بنانك لا جسوا شقينا حمالي ولا قاضي وحلينا كمسؤول أنت جوري أباها جوتين أباها كمسؤول إلى لقى جوسناي هدو أباها دنت ويلك كلنا إشتا مسؤول ك ويلك سا ولاش است مسؤول ك إلى لقى جوسدي هدي لجوسدي نين كذا مسؤول كنا قناي هدي سوق لا تجان جبنا سي سوق لا تجان مسؤولية أباها دي كسون قني أمولال كذي كسون قني هدي أباها هذا دنت ويل هدي لا ويل كذا إذا قاضي marka gabar saasoo kale loo ilaaliyo qofkii ku xadgudboo caayo marka qof wanaagsan ma ahan qofka muslimka waxa loo baahan yahay inuu iska ilaaliyo waxyaabaha qaarkood oo iska ilaaliyo caytanka oo iska ilaaliyo wallahi ayda ma dhaqanto waxa laga yaabaa hadda maanta hadaan ku dharbaaxo ama fiiran kugu dhufto wax yar kadib inay ilowdida laga yaabaa khalaas meesha kaaga xiranto laakiin qofka haduu qofka caayo waliis kama fuqayso zinana يا زينة نصاص رسول ابن عباس رضي الله عنه وحوده جري عنهما وحوده جري رسولك صلى الله عليه وسلم النبي أنبياء من هو كشيكين وحوده جري إلهي كتاب وحوك شيء النبي حاس كيس قالته النبي نوح وكله النبي حال ده لوط وكله إلهي وحوك كتاب كشيء عنقيسة نبي عنقيسة قال يهو شيء نبي نوح وكله إلهي وحوك شيء النبي أبيه سقال يهي نبي إبراهيم وكله إلهي مشيق النبي هو يديس أما حاسكيس أما ولاشيس أي زنيسة كتابكم مشيق إلهي هو إلالنا زنان سيوحنته ويا مركز زنان سيوحنته وحيابه أو وحنا وقفك اللوبة نوسكي إلالي مركز زنا ذواحي زنا ذنه إلهي مرين ولا تزنوا هديهن ولا تقربوا الزنا هؤلاء ويا مركز هذا كان حن وبداية ذواحي رسول صلى الله عليه وسلم تقول هاي أفك وزنيستا زنا دي سنة هذا الكواي زينيستنا هذا الكواي مركا قفك ما لو باهنا قفك إنه إسرائيل لو باه قفك مسلم حلو باه إنه إسكي إلاليو رسول صلى الله عليه وسلم وحويري حديث كان ربنا سفيع ودقيستان لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 قف آخر إلهي هرتي سكتة ملا إلى أفرت سؤال ويديوك جوابه ما يقال ويدينا أفر سؤال أول سؤال وحال ويدينا عمري قاعد محاكو رميسي عايتم ما كنا ميسي متقالة كنا ميسي عمري جيسم عمري مركي لويدي محاقون لويدينا ما تقانا دانا يراني ماذا لويدينا
Can you believe that? dhalinyaranimada lagu weydiinaa. Okay, dhalinyaranimada is a part of my life waaye. Yes, it's part of your life, laakiin waa golden age-kaaga waaye. waqtiga ugu qiimaha badan tahay oo wax samayn kartid waaye. sidaa darteed si gooniyaa lagu weydiinaa. waa loo addimaa sheekh axmed waa sugaynaa labada kale waa sugaynaa aniga lifeka inta daawanaysa allahu aclam gabdha iyo wiilal inta ku jiro ma oga laakiin waxaa rabaa inaan idiin sheego oo ani codkayga afkayga ka maqashiin wallahi kacaluush ahaan waa ligu forjeeyaa mararka qaar not all the time waa ligu forjeeyaa waxaa la yidhahaa mar walba gabdhaha la jirtaa mar walba gabdhaha jeceshahay mar walba gabdhaha difaacdaa mar walba gabdhaha xaqooda ka hadashaa gabdhaha u jilcan tahay hooyada iyo aabaheyna aniga wax wiil ma dhalin keligaya wiil ah gabdha una ila wada dhashani yaa igu forjeenaya marka mid aniga oo kale walaalihiis jecel gabdhaha la dhashay jecel mid aniga oo kale hooyadiis jecel mid aniga oo kale qof kasta oo wanaagsan jecel iguma forjeenayo mid taleefanka 15 gabdhood uga sheekeynaya 15 gabdhood tan been u sheegaya tan been u sheegaya taas been u sheegaya tan been u sheegaya igu forjeenaya mida hooyadiis la hadin hooyadiis qiimaha ay leedahay aqoonna igu forjeenaya mida walaashiis caawa hadee 7 saac habeenimo guriga imaadee 8 saac habeenimo guriga imaad ana kala jeclana igu forjeenaya mida gabadha uu qabo aanan u baqaynin ay ugu forjeenaya laakiin midka qiimaha gabar yaqaan iguma forjeenaya taas alxamdulilah waxay leeyahay mahadiya inaana maanta ligu forjeenaynin gabaraa dhibtay gabaraa caysay gabaraa ka dawreegtay inaan ligu forjeenaynin walaalahay ilaahay dartiisa idin jeclahay mid idinka niiga mid oo aniga maanta wax igu sheega karto wallahi ma jirto oo idhehaysa caruushan waxaas u sameeya macruushaa sidaas u yeela macruushaa sidaas u sameeya wallahi idinkuma jirto laakiin ilaahay dartiisa idin jeclahay sida aan idin jeclahay ilaahay iyo addoommadiisa baa idin jeclaadaan boqolaal wiilal oo waxaa jiro wallahi naga qiimo badan naga cilmi badan naga karti badan laakiin maanta aanan jaaniska idinkula hadlayn aanay haysanin oo bara bulsho ku jirin oo bara bulsho samaynin laakiin qiimihiina yaqaano talo walaal haddaa iga qaadanaysiin inta aad weli shabaabka tahay oo dhalinyaro aad tahay oo aad joogtid nin kula tirsanayo kula murmaayo intaa tiri inteeda kale ku dhahayo haddii uuba noloshaada ku jiro ka suus cimrigaagana kuma hayo caafimaadkaagana kuma hayo calafkaaga waxaa heli doontina kuma hayo saddexdaba kuma hayo nin adoo bannaanka ka taagan kula murmaayo kula buuqaayo wax kasta intaa tiri inteeda kale ku dhahayo haddaa maanta ka xanaaqdo xitaa aanay garanaynin way xanaaqsan tahay raali noqon inaan ku dhihi karin oo baloog ku saaraya sida nin ficiisoo kale kuula tirsanayo haddii uu noloshaada ku jiro ka bax noloshaada ha iscadibin qof adoo bannaanka aa ka joogtad qiimahaaga dumarnimo aa ka weysid keligii meel ha ugu noqonin ilaahay waxaa idin weydiinaa wax idin adeega ma ahne wax idin dhabinuus ilaahay idin tusin sheekh axmed su-aashii ugu dambaysa aa ku weydiinaya waxaa waaye haddii aan aragna anaga qof walaalay dhibaataysan ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqoto inkastoo hadday u badan tahay gabdhaha haddii aan aragno gabar dhibaataysan oo muuqaal qaldan ama sawir qaldan laga duubo oo lasoo gudbiyey aan aragno si kasta ee iyada markaa qaladkaa lagu sameeyey ee qayb uga tahay ama aysan qayb uga ahayn dhib hadduu yimaada dhabaq meel beeshay dhahda soomaalida waa la yiri iyo waa la dhahay waa la fiiriyo way zuuli haddii dhib uu yimaado maxaa anaga nala gudboon for example waxaan aragnay qof dhan qiimihiisa bini'aadanimo oo lagu ciyaaraya aragnay ama muuqaal ha noqoto ama sawir ha noqoto ama cod ha noqoto maxaa nala gudboon anaga inaan sameyno qofkaas position noocee ayuu naga taagan yahay waana ku sugaynaa cimrigaaga iyo dhallinyarnimadaada waa sugaynaa labada kale noogu dar kadib su-aashaas nooga jawaab إن شاء الله تعالى. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حديث تودا دلنيرني بي سؤال ويدينا وحكى له ويدينا عمري ويدينا جسمي يا محاكو سميسين ولا ويدينا وعن جسمي فيما أبلاه جسمي يا محاكو سميسين محاكو سميس معنى هذا وحواي ما ملحنا لآدمية قاوسي ما حركة حنا كسميسي معاصي كسميس ولا ويدينا وعن جسمي فيما أبلاه ولا ويدينا
waxaa kaloo lagu weydiinaa xoolahaaga halkee ka keenta halkee ku bixiso waa lagu weydiinaa saddexdan su-aal ugu muhiimsan dhalinyarada hadda zamankan jirto saddex su-aal ugu muhiimsan qof walba loo baahan inuu iska ilaaliyo dhalinyaronimadaada waxaa ku samaynaysa jismigaaga waxaa ku samaynaysid lifekaaga dhan waa lagu weydiiya rasul sal slam xadiid kale wuxuu yidhi iqtinim khamsan qabla khams shan horteeda ka faa'iidaysa intaysa shan kale ku dhicin maxaa ugu horeeya ka faa'iidaysa dhalinyaronimadaada intaadan duquubin caafimaadkaaga intaadan xanuunsanin firaaqahaaga intaadan mashquul noqonin xoolahaaga intaadan faqiirin noloshaada intaadan dhimanin shantaasna ka faa'iidayso rasuul sal alay wasalam waana